بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Faysal Khaliif Barre waxaan ahay wariye Soomaaliyeed oo degan magaalada Garowe waxaan rabaa inaan aragtideeda ka dhiibto mowduuca siyaasiga ah ee maalmahan ka taagan Soomaaliya ee la xiriira arrintii ka dhalatay go'aankii dowladda federaalka Soomaaliya ay ugu gacan gelisay Itoobiya sarkaal ka tirsan ONLF marka koowaad waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo madasha Dalsoor oo ah madal runtii loo baahnaa in afkaarta ay isku wadaagsadaan dadka Soomaaliyeed iyo aqoon-yahankooda marka xigta maalmo kadib markii dowladda Soomaaliya ay go'aankaasi qaadatay dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan weyn wada ognahay cadada iyo heerka ay ka gaadhay waxa laga sugayay dowladda federaalka Soomaaliya in ay tafaasiil siiso dadka Soomaalida iyo golayaasheedaba waxa ay ku saleeyeen go'aankii ay qaateen iyo qaabka dowladnimo ay u mareen go'aankii marka shalay soo baxay waxa uu muujinayaa inaysan marka hore ee ay dowladda Soomaaliya go'aan ka qaadanaysay in ay talaabadan qaadaan aysan maankooda ku jirin ama aysan u diyaarsanayn inay si qaanuuni uga fikiraan go'aanka ay qaadanayaan waxa ay ku baystaraynayaan go'aan kasta oo dowladnimadu ay qaadanayso ama dowladda ay qaadanaysana waxa xukuma ama determine gareeya ama macnaheedu u noqda asaas u noqda waxa weeye waa qaanuunka iyo shuruucda iyo nidaamka dowladnimada waxaan sidaa u leeyahay habkii ay dowladda federaalka shalay u jawaabtay ma ahayn hab ku filan in ay dowladdu ama xukuumaddu ku qanciso shacabka Soomaaliyeed iyo golayaasha kala duwan ee dowladda ma doonayo inaan tafaasiil dheeraad ah ka sameeyo laakiin dadkii qaanuunka aqoonta u lahaa markii ay hadlayeen ama ay tilmaamayaan sharci aan asal ahaantiisaba dhaqangal ahayn ama aysan baarlamaanka Soomaaliya gudbin oo aanay baas garayn macnaheedu dowladdu kuma go'aan qaadan karto go'aan noocaas oo kala marka qaanuunka dhankiisa la eego arrintaas marka waxa weeye waa arrin runtii aad u xanuun badan oo aanan ka filayn xukuumadda haatan talada haysa oo rajo badan ay dadku ka qabeen balse waa maxay waxa ku xiga waxa socda in mudanayaal fara badan oo baarlamaanka Soomaaliya ay aad arrintaas uga hadlayaan doorka kaliya ee harsanna waxay tahay in baarlamaanka Soomaaliya oo shacabka Soomaalida jawaab sugan ka siiyo isla markaasina ay la yimaadaan halbeeg dowladnimo oo dadka Soomaalidu ay ku qancaan qanacaas macnihiisu waa maxay wixii dhacay maxay u dhaceen maaha ujeedadu laakiin wixii dhacay maxaynu ka baranaa sidee loo sixi karaa yaase mas'uuliyadda iska leh haddiise ujeedadu ay noqoto common punishment oo macnihii baarlamaanka laf ahaantiisu uusan la iman tala dadka Soomaaliyeed u cuntantaa waxay noqonaysaa un jugjug meeshaada joog baarlamaanka Soomaaliya waxaan uga baahannahay inay arrintan maanta uga fadhiistaan si mustaqbalka soo socda aysan u dhicin in go'aanadan oo kale ay horta macnaheedu dowladda ku dhaqanto number 2 number 2 in aanu aragno golayaasheedii dowladda oo u xisaabtamaya si ay ku dhisan tahay xigmad iyo aqoon oo aan ahayn kuwo macnaheedu isu jiidanaya sidii aynu soo ahaan jirnay waxaan doonaynaa inaan isbedel ka duwan wixii hore aanu aragno baarlamaanka waxaan ka rabnaa inay noo muujiyaan baarlamaan matali kara shacabka Soomaaliyeed oo qiimeyn kara khaladka jira intuu leeyahay iyo saxidiisa balse aysan noqon arrintu maanta awr inoo qalan yahay iyo sidii hore soo dhici jirtay taas waa koow fariinteeda labaad waxay ku socotaa media waxaan u mahadcelinayaa warbaahinta Soomaaliyeed oo duruuf adag ku hawlgasha waxaan si rabaa inaan halkan iyagana uga soo jeediyo warbaahinta shacabka Soomaaliyeed wuxuu ka doonayaa inay u shiilaan oo u karkariyaan xaajada meesha taala dabadeed iyadoo bisil ay dadweynihiisiyaan oo qof kasta oo heerkiisa aqooneed meesha doonaha gaarsiisanaatay uu arrintan ka dhigi karayo ujeedadan kale hadalkaas muxuu yahay waxa weeye waa inay warbaahintu si qoto dheer
ay u eegaan arrimaha qaanuunka marka la isku qabto tusaale ahaan shalay warbaahinta Soomaaliya oo dhan labada dhinacba way wareysanayeen markii dawladda federaalku ay ka hadlaysay go'aamadeeda ma jirin warbaahintu inay isku taxallujiso qodobadaad isticmaasheen xeerkaad isticmaasheen nambarkiisa iyo qodobkaad isticmaasheen muxuu yahay waxa soo baxay madax kale oo Soomaaliyeed oo iyaguna difaacaya oo leh siyaasaddaasna lagu macnaheedu go'aankaas dawladdu ay sheegayso waxba kama jiraan siyaasaddaas annaga goobjoog ahayn annaga saxiixna waxaana ma nasaxeen labadiiba waxay noqdeen oo media ay isticmaaleen labadii dhinacba in ay jahwareer dadka Soomaalida ku siiraan markaas sida darteed waa in marka arrimaha qaanuunka la isku qabto waa in wariyaashu ay talaabada koowaad ee qaadayaan ay tahay in ay eegaan shuruucda laga hadlayo iyo numberiskooda iyo qodobadooda oo mas'uuliyiinta hadda la yiraahdo qodobkaad iskatay muxuu yahay qodobkeeba arrintaas sheegay arrintaas waxay u fududeynaysaa dhageystayaasha iyo shacabka Soomaalida inay fahmaan mowduuca la isku hayo iyo cidda markaasi arrinteedu aysan cadayn haddii kale waxay noqonaysaa hadba kii aad dhegeysataa inuu mowqifkiisu kula weynaado oo ay dadkii jahwareer ay ka qaadaan